magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciidamada booliska ee gobolkaasi waxay xabsiga u taxaabeen laba wariyool ka howlgala magaalada Laascaanood kuwaas oo xalay xabsiga loo taxaabay kadib markii la sheegay inay baahiyeen warar ka soo horjeeda qarannimada Soomaaliland wariyaashan xidhan ayaa kala ahaa Xamse Cabdiraxmaan Xamse Darwiish oo ka howlgala TV-ga Kalsan iyo Maxamed Bidhaashe oo ka howlgala TV-ga SBS isla markaana sawir qaade ayaa hadda ku xidhan xabsiga dhexe magaalada Laascaanood maamulka degmada Laascaanood iyo kan gobolka Sool iyo saraakiisha amniga wali wax hadal kama aysan bixin xariga wariyaashan marka laga reebay inay ku eedeysan yihiin in ay baahiyeen waxyeelo ka soo horjeeda qarannimada Soomaaliland maraan isku danaynaan wax ka weydiina xariga wariyaashan barasaabka gobolka Sool noomay suuro gelin khadka taleefanka awgi hore ayaa sidoo kale gobolada Awdal Saaxil iyo Hargeysa lagu xukumay wariyaal kuwaas oo la sheegay inay baahiyeen warar ka hor imanaya qarannimada Soomaaliland sida uu sheegtay dawladdu tan iyo intii xukuumadda cusub ee uu hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa soo badanaya wariyaasha la xidhayo sidoo kale ururka suxufiyiinta Soomaaliland Soldier kama hadlin wariyaashan xabsiyada ku jira waa Maxamed Bashiir Nuur Greek Ariel TV Hargeysa